yaa qaadaya mas'uuliyadda dagaalkii Ras Kamboni wiilashii qaranka Soomaaliyeed u halgamay una taagnaa calanka Soomaaliyeedna kor u haayay maanta ila daawo haddaba yaa qaadaya mas'uuliyaddan ma madaxweynaha ma ra'iisul wasaaraha ma taliyaasha hogaaminayay ciidanka in wiilashii Soomaaliyeed ee qaranka u halgamayay iyaga oo wata calanka Soomaaliya walibana riyadooda iyo rajadooda ahayd in Soomaaliya mid ah ay markaasi ay wada arkaan walibana Ras Kamboni oo muddo saacada halkaasi ama maalmo ay isku hor fadhiyeen ciidamada walaalaha ah ee dadka walaalaha ee markaasi wada degaa Soomaalida inteeda oo dhan laakiin waa masiibo iyo waliba sidoo kale tala la'aan ayaa la dhihi karaa waxyaabahan oo kale in wiilashan sidan oo kale ila daawo muuqaalkooda runtii waa qalbi jab iyo waliba niyad aad u weyn xitaa waxa ay diidan yihiin in muuqaalka laga duubo ay kor soo fiiraan madaxooda ay hoos u dhigaan sababtoo ah waxay u dhaarteen qarankooda waxay dhabarka u saarteen calankooda si ay u difaacaan ay meel dheer u gaarsiiyaan sharafta iyo karaamada qarannimada ee Soomaaliya laakiin maanta xaaladan ayay ku sugan yihiin oo walibana qatar ayayna ku jiraan in markaasi ciidan kale Soomaaliyeed gacanta ku dhigo walibana muuqaal uu ka duubo iyagoo markaasi wajiyadooda laga dheehan kareenin wax la yiraahdo farxad misna markaasi qalbi wanaag aysan ka jirin dhamaantood hoos ay wada fiirinayaan marka kaamirada ku soo aado taasina waxay tusaale u tahay niyadjabka culus ay qabaan ama markaasi saraakiisha ciidanka ay halkaas ay kala kulmeen iyagoo oo fariismooda iska jooga ayaa la soo weeraray kadibna hubkoodii noocyada kala duwan ayaa laga qaatay kadibna dhamaantoodba ciidanka maamulka Jubbaland oo waliba maamul ka mid ah Soomaaliya intuu qabto meel uu geeyo haddana muuqaal uu ka soo duubay waxa ceeb ah ama fadeexaba ah in maamul ka tirsan maamulkii dawladda un haddana markaas ciidamadii qaranka intay qabtaan ay meel fariisan muuqaal ay ka soo duubaan haddaba yey u bandhigayaan ilaan qaranka meeshii la rabo in loo wada dhinto hadiiba in la fashiliyo laga shaqeynayo su'aashu weyn ay tahay yaa markaasi la raba inuu meel gaaro haddaba mid ogaada hal arrin waa bartaanan ku baahinayna Soomaaliya inta ay jiraan madaxweynayaal maamul goboleed laga ma yaabo yaana lagu riyoonin yaana lagu dhalinyarada Soomaaliyeed lagu mustaqbal siijinin yaana hooyooyinka Soomaaliyeed lagu oohinin laga ma yaabo inay israacdo Soomaaliya walibana mid ay noqoto sababtoo ah madaxweyne kasta maamul jooga wuxuu ismooda ama isku haysta madaxweynaha wadanka oo dhan inuu asigu yahay waana xaqiiq tan kale Soomaaliya maanta ama madaxda maanta waxay ogaadeen xaqiiqada saxda ah meesha cadowga saxda uu jiro meesha loo baahan yahay waqtigan in hiilo iyo hooba lala garab galo waxay ogaatay dawladda Soomaaliya maanta in halka laga haystay laga curyaaminayay ay maanta u bidhaantay tusaalan ay u yihiin in qarankii Soomaaliya dadkii u adeegay maanta sidan ay yihiin